diinta islaamka ayaa qaatay kadibna waxaan uga badbaaday khataro badan. hooyada ayaana soo islaamiyay kadib markaan ogaaday naxariista iyo diinta dhabta ah inay tahay midda islaamku haysto. sidaasi waxaa yiri nin gaal ahaa oo diinta islaamka ku soo biiray kadib asagoo la daaladhacaya xaalado adag oo noloshiisa soo wajahay. qof walba oo Ilaahay la doona hanuun waxa uu ku soo duwaa wadada toosan iyo jidka sawaabka. ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo aynu kaga hadlayno ninkan qaatay diinta islaamka kadibna hooyadii soo muslimiyay iyo marxaladihii qatarihii uu soo maray intuusan qaadan diinta islaamka. inta uusan qaadan diinta islaamka waxa uu ka mid ahaa dadka dhaca geysta, daroogada isticmaala, noloshiisuna waxay ku jirtay khatar 100%. sida uu sheegay ninkaynu ka hadlayna waa Rabia Mastaraka oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Australia kuna soo koray Mareykanka. muddo dheer ayuu ku noolaa jiray nolosha daangiska, dambiyada iyo daroogada ayuu wehel u ahaa. sida uu sheegay wuxuuna yiri nolosha meel aad u xun ayay iga bilaabatay. aniga oo yar ayaa saaxiib la noqday dad aad u xun oo ay baray daroogada iyo dambiyada. waxdana kamaana lahayn nafteyda, noloshuna qiimo iguma fadhin ayuu yiri. laakiin waxaan aaminsanaa diinta Kirishtanka. markaan arkay inaan meel khatara marayo una socdo waxaan ku laabtay kaniisadda si aan u raadiyo wax qalbigayga ii dejiya. laakiin waa degi waayay, waa ku kalsoonaan kari waayay. shaki ayaa iga galay diintaas si kastoo aan u jeclaa. maalin maalmaha ka mid ah ayay igu soo dhacday nin taksi. maalin maalmaha ka mid ah anoo gurigayga jooga waxa igu soo dhacay nin saaxiibkay ah oo taksila ah oo muddo dheer ka hor ay isnaqaanay, laguna magacaabi jiray Maxamed. waxaan la hadlay anoo ka dalbaday inaan masjidka u igeeyo haddii la ii ogol yahay oo la ii fasaxi karo. wuxuu ii sheegay in la ii ogol yahay masjidka, waa uuna ii kaxeeyey. sidii baan ku tegay masaajidka. markaan galay masjidka waxaan dareemay nolol degan oo ii horseeday inaan baaro diinta islaamka. may fududayn dabcan inaan qaato diinta islaamka, waayo aniga iyo reerkaygu waxaan ka soo jeednaa oo aad ugu xirnay kaniisadda Kaatoliga. markaan baaray oo aan xoogaa ka bartay kadib waxaan ku degay diinta islaamka, waana ku qancay inay tahay diinta dhabta ah ee dunidan, waana islaamay. 3 bilood kadib waxaan sidoo kale ku guuleystay inaan hooyada shahaadka u qabto oo aan soo islaamiyo. si walba oo noloshu igu adkeed, qatarna aan la kulmayay, aniga iyo hooyaday markaan soo galay diinta islaamka waxaa la kulannay naxariis, farxad badan iyo annagoo aragnay in diinta islaamka ay tahay diinta kaliya ee lagu dego laguna farxo. fadlan daawada sii sheer garee warbixintan, leeg saar oo follow page-kan, mar walbana nagu xirno si sheekooyinkeena aad ula socotid. mahadsanid.